Videogii ka horeeyay purchase order ayaa jira aynu u dirnay suppliers alaab aynu dalbanay oo aynu laba supplier oo kala duwan aynu ka dalbanay. casharkan waxaan rabaa inaynu ku baranno oo alaabtii orderka kuugu maqnayd marka aad hesho sida aad page 3 ugu record gareynayso. laba wax baynu eegaynaa, mar iyadoo waxaynu dalbanay oo dhamistoodii inoogu yimaadeen, marna iyadoo wixii aynu dalbanay bar ka mid ay inoo yimaadeen. labadaas siyoodba way u dhici kartaa oo alaabta aad dalbato in lagu soo wada helo supplierku kuu soo wada dhiiban waa wax dhici kara. in alaabta qaar ka go-an tahay oo qaarna kuu soo helo, qaarna kuu soo wadaayo, qaarna bar kuu soo dhiiba, taasina waa wax dhici kara. siday u dhacdaba siyaabaha kala duwan ay u dhici karto sidaad page 3ga aad ugu handalgarayn lahayd baynu casharkan ku eegaynaa. ilaan hawl baynu qabaynaa sidii caadiga ahayd task baynu tegaynaa. tasks markaad tagto waxaad tegaysaa purchase receive inventory. purchase receive inventory marka aad tagto vendorkaad ka soo iibsatay baad halkan geenaysaa. tusaale ahaan oo kale deero oo kale purchase orderkiisii baa yimi. deero markaan ku dhuftay waad aragtaa halkan laba taab baa yaala, apply to purchase iyo apply to purchase order. labadani waxay kala yihiin kan apply to purchase waa haddaad quick purchase samaynayso oo adigoon purchase order dirin haddaad alaabtii si toos aad usoo iibsanayso, oo waxa weeye adigoon marka hore purchase order dirin halkanaad sidii caadiga ahayd aad u gelinaysaa. taa waynu u iman doonaa. halkanna waxa weeye haddii purchase order kuugu maqnaayo dalab kuugu maqnaa vendorka aad dooratay, taabkani markaasuunbuu activate garoobayaa. halkan ay ku taallo apply to purchase order number waxaad kala soo baxaysaa purchase orderadii kuugu maqnaa 1002 waa inoogu maqnaa. halkaa waa kan furmay. itemka inoogu maqnaa noociisu FD2 buu ahaa oo raashikii bariiskii kotka kilograma 1 unit baa inoogu maqnaayo remaining waa kan. inta aad heshay halkanaad ku qoraysaa. ka soo qaad inuu kan 1000 unitkiiba uu inoo keenay. 1000 unitkiiba waan ka helay bay ka dhigan tahay aan ka dalbaday. okay, price-ku kaa siinayana waa kaasoo si automatic waxa uu bixiyay page 3ga. waayo markaynu itemka soo sameynayno price-ka yacni cost-ka laynaga soo siiyo innaga markaasaynu soo gelino, innagana 20 laynaga soo siin jiray, innagoo 50 baynu sii siin jirnay. invoice buu kuu soo raacinayaa. invoice numberkii supplierka ayaad halkaa gashanaysaa. invoice numberkii supplierka oo waxaan odhan karaa oo kale tusaale ahaan invoice 001 ayaan odhan karaa. hadduu biilkii kuu soo raaciyey oo biilkii iyo uu isu kaa soo raaciyey waxa weeye alaabtii waad safe garaynaysaa. haddaanu weli biilkii kuu soo dirin halkaa werin oon biil baad odhanaysaa, ayaad check garaynaysaa. markaa iminka waxaan assume garanaya inuu biilkiina inoo soo diray. invoice totalkaagii waa kan. amounti aad bixisay hadday jirto oo haddii aad marka aad kuu timid lacag sii bixisay halkanaad gelin kartaa. amountiga lagu leeyahayna waa tan. haddii aanad wax lacaga bixin dee invoice totalka iyo net amount iyagu way isla egyihiin. previous balance iguma lahayn vendorkani oo aragtaayo waa 0 wax hore iguma lahayn. sidaasay kaaga dhan tahay oo aad ku safe garaynaysaa. safe baa kaasi waa kaa. waxa kaloo aynu eegaynaa in purchase orderkii oomaar inoogu maqnaa alaabtii aynu ka dalbanay bar inoo yimi, barna weli uu inaga maqan yahay. halkanaad tegaysaa. vendorku waa oominko. oominko inaad purchase ka soo iibsato iminka alaab aad ka iibsatay oo purchase orderkii hore kuugu maqan yahay waad samayn kartaa. aad alaab kale ka dalbato waxaad samayn kartaa in orderkii uu kugu yimi kuugu maqnaa. waxaynu leenahay alaabta inoo timi waa taynu dalbanay. halkan apply to purchase order number waxaynu soo dooranaa purchase orderkii inoogu maqnaa 101. waxa inoogu maqnaa laba nooc oo alaaba. mid bariiska 5 kilogramka ah, midna sokorta kotka kilogramka. mid 500 oo kiish baa inoogu maqnaa, midna 200 oo kiish. bal ka soo qaad in waxa weeye sokortu haba yaraatee aanay ay ka go-an tahay oo aan wax sonkora inoo soo dirin inuu nagu yara sugan. bariiskiina uu 400 oo kiish inoo helay oo 100 kiish gadaal baan idinka soo diraya. halkaasaad gelinaysaa 400 oo kiish oo bariisaa kuu yimi. sokorteeda waxba kama iman. eeg 500 baa kuugu maqnaa, 400 baa kuu yimi.
sonkortayada zero ayaad kaga tegaysaa oo waxa weeye wax sonkora haba yaraatee kuumuu keenin. invoice buu kuu soo raaciyey waxa weeye waa invoice 0010 badhe. biilkii hadduu kuu soo raacin weyn on biil, waayo biil inoomuu soo raacin iminkoo waxaynu filaynaa ilaabta markuu inta kala maqan inoo soo raro inuu biilkana inoo keeni doono. marka waxaan leenahay receipti wadood biil weeyaan iminkoo alaabtii un baynu helnay laakiin wax biila maynaan helin. safe baynu leenahay, saasaan ku safe garaynaa. iminka haddaan deero doorto xasuusnow deero alaabtii inu ka dalbanoo dhan waynu ka helnay. waa inactive ama uu outgareeyey taabkii ahaa apply to purchase order, waayo purchase orderkan suu u dhammaa waynu alaabtiisi waynu wada helnay. markaa kii wax ka soo iibsoo qura ayaa inoo furan. laakiin iminka haddaynu oomin ka furno wuxuuna xasuusinaya marka hore in uu jiro biilal aan inoo imanoo alaabtoodi inta inoo timi aanu weli biilkii sugayno. okay, taas way xasuusinayaa. oominka markaad eegto taabkii waa active, waxaan oran karaa kan halkay 500 ka ahayd remainingkii wuxuu ka dhigay 100, kana 200 waa inoo maqnaayeen. kadibna kan 100kii buu inoo keenay naga maqnaa ayaan leenahay, kana 200 ba wuu inoo keenay. okay, safe baynu leenahay. wuxuu inoogu keenay invoice 0101 ayuu inoogu keenay. safe and new baynu leenahay. okay, iminka haddaad oominka ku noqoto wuxuuna xasuusinayaa in biil inagu taagnaa uu jiro. markaa waa kaa taabkan wuu xidhan yahay, kama qura ayaa inoo furan. ka waran biilashaa inagu taagan saynu odhanayna marka biilkii inooyi bay ka dhigan tahay kan dambe la socday. markaa markaan negas tiraahdo haddana back baad leedahay, mar labaad back baad leedahay. kaasuu ahaa waiting on bill, waad ka qaadaysaa waiting on biilkii maadaama uu biilkii uu inoo yimi. safe baad leedahay. iminka markaad doorato wuu kaa deenayaa alaabbaa biil sugaysa oo waxba ku odhan maayo. halkaa waxaynu ku eegnay sida aad purchase orderkii kuu maqnaa aada isagoo dhan u wada heli karto isagoo biilkiisi noola socdo. sida aad purchase orderkii kaa maqnaa waxa weeye bar ka mida aad u heli karto alaabtii marka federal barkuusoo rubarna ay kaa maqan yihiin. sida aad barkii kaa maqnaa aada hadhow u heli karto iyo alaabtii marka hore bilaa biilka kugu sida aad biilkeedii aada u heli karto.